barnaamijkeeni la yaabka maanta waxaan ku eegi doonaa hanashada labada koob ee Yurub ee kooxda Liverpool ayaa haatan ku jirta waqtiyadeedii ugu wanaagsanaa tan iyo hoos u dhici kooxda ee 9-meedkii waxayna bilooyinkii ugu dambeeyay ku soo wada guuleysatay laba koob oo qaarada Yurub ah. Reds ayaa horaantii bishii June guul laba iyo eber kaga gaadhay Tottenham si ay ugu guuleysatay UEFA Champions League halka Arbacadii hore gool kulaadii Chelsea kaga adkaadeen tartanka UEFA Super Cup Istanbul lagu dheelay. haddaba kadib guulasha waxa toddobaadkan ay ku beegan tahay markii uu bilaabay xilli ciyaareedkii 1989 ilaa 90 Liverpool ay ku soo guuleysatay horyaalkeedii ugu dambeeyay England 30 sano ka hor. waxaanu halkan idinku soo bandhigi doonaa waxyaabaha ugu yaabka badan ee waqtiga dunida ka jiray qodobadaasi iyo arrimaha qaar ee fajac ku ridaya jiilka maanta ee Liverpool cusub ee daawada. ugu horeyn waqtigan dunida ayaan lahayn waqtigaas ayay dunida aysan lahayn isgaarsiinta internetka ee maanta dunida u sahashay inay iska war hayso. sidoo kale waxa waqtigaasi wax weyn uusan jeebka ku qaadan karin ahaa telefoonka gacanta. inta ugu badan xidigaha Liverpool ee haatan waqtiga nooleen si ay u arkaan Alan Henson iyo xidiga kale oo kooxda oo horyaal qaadaya. saddexda ciyaartoy ee kala ah James Milner, Nigel Lovren iyo Adam Lallana ayaa kuwa kaliya ee waqtiga dunida jooga halka daa'irka daafaca midig ah Arnold uu 8 sano kadib dhashay. tababaraha kooxda Liverpool George Klopp ayaa kaliya sanad ka hor waqtigaas ku guuleystay inuu helo qandaraaskiisii ugu horeeyay ee xifaaltami ciyaartoy isaga oo ka hor ciyaaray jamaahiirta kaliya 5,000 oo ka tirsan kooxda Frankfurt. Ryan Gosling ayaa waqtigaas ahaa xidigii ugu qaalisanaa dunida isagoona rikoorka ku haystay adduun 6 milyan. kabacdina Juventus ayaa waxa ay la soo wareegtay Roberto Baggio. Aston Villa ayaa ahayd kooxda la xifaaltamisay Liverpool iyo horyaalka kaga guuleysatay halka difaacayaasha horyaalka maanta ee Manchester City ee Bosco